shirkan siyaasadda tamarta dalka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya oo labadii cisho ee lasoo dhaafay ka soconayay magaalada Muqdisho ayaa maanta lasoo gabagabeeyey. wasiire matalayay wasaaradaha tamarta qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qaybgalay muddada uu shirkan soconayay. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan iyo wasiirada matalayay wasaaradaha tamarta maamul goboleedyada dalka oo shirkan hadallo ka jeediyey waxa ay iftiimiyeen muhiimadda uu u leeyahay in shirkan ay ka qaybgalaan. shirkaduhu waxay door muhiim ah ku lahaayeen iskaashiga baydhabo ka dhacay iyo kii shalay dhacay wixii la soo diyaariyay ama siyaasadii la soo diyaariyay runtii oo ahayd siyaasad ka turjumaysa baahida maanta loo qabo in la helo siyaasad hagta tamarta Soomaaliya oo dadka maanta gacanta ku haya adeega korontada oo shirkadaha gaarka loo leeyahay runtii qayb muhiim ah ay ku yeeshaan sharci ahaan iyo qoraal ahaanba runtii si fiican loo soo diyaariyay. annaguna aanu qayb ka ahayn arahdayadii qaybtii aanu baydhabo jeedinay iyo taanu shalay jeedinay inta aan rajaynayno insha Allah si cad iyo si difference inta loogu soo dari doono. anagu magaca maamul goboleedka ku hadlaya aan adinka idin soo dhaweynaa barwaaqada aan la kulmana oo sameeyna inta yada hawsha qabsan waxa leenahay aan iska warqabno dalka inta ka dhiman iyo hawsha naga dhimanna wadajir baa wax qabsanayna. wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Maxamed Sheekh ayaa gabagabada shirkan hadallo ka jeedisay waxaana ay u mahadcelisay dhammaanba xubnaha muhiimka ahaa ee ka qaybgalayay shirkan. waxaan soo gabagabeynay muxuu ahaa policy-gii ama siyaasadda tamarta waa ku guuleysan alxamdulillah ilaaha ugu mahadcelinaa hadduu ilaahay yiraahdo cadaaladda si uu marqaato u noqdo wax kasta in cadaalad la waafajinayo inay cadaalad tahay waa u jeedaa hortiisa si cadaalad leh ayaa muxuu ahaa aan u qornay waxa marqaati ka waxa joogo wasiirada dawlad goboleedyada raalli ah private sector kii raalli ah wasiir marka hadhowdaha cadaaladaha igu qaadin waa u jeedaa marqaati aan kaaga dhigay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ugu dambeyntii shirkan soo xiray waxaana uu u mahadceliyay xubnaha wasaaradda tamarta ee shirkan soo qaban qaabiyay. waxa u maleynayaa kan inuu yahay oo maanta aan halkan u fadhiino qaybta dambe oo siyaasad qaran oo lagu nidaaminayo arrimaha tamarta. waad garan kartaan sidii haddaba ay noo sheegeen private sector ahmiyada arintaas ay leedahay. dalkeena wuxuu ka soo kabanhayaa burbur kheyraad fara badan waa jiraan. kheyraadkaas in la helo waxa asaas u ah in shirkado la helo dawladda ha lahaato mise private sector ha ahaadeen adeega tamarta bixiyo. waad ogsoon tihiin wax kasto dhaqaaqa had waxa way electricity iyo tamarta lagama maarmaan way. maanta haddii oo korontada go'do xafiis shaqayn kara ma jiro. Umar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.